maayarka caasimadda gobolka Gabiley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo injineer Cabdo ayaa waxay deeq lacag ku wareejiyeen gudida taakulaynta abaaraha ee gobolka Gabiley taasi oo ay soo direen haweenka qurba joogta ee UK magaalada Cardiff kana soo jeeda gobolka Gabiley iyo Abakar Aadan Maxamed oo jooga Canada waxaana lacagahaasi loogu talagalay dadka ka soo barakacay abaaraha bariga Somaliland ee ku sugan gobolka Gabiley waa kuwan mas'uuliyiintaasi oo lacagahaasi wareejinaya iyo iyaga oo gudida taakulayntu ay kala wareegayaan maanta halkan waxaan ku wareejinayaa lacag $1,164 oo ay soo wakiisheen haweenka qurba joogga ee dalka UK khaasatan magaalada Cardiff oo ay ugu talagaleen inay kaga qayb galaan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu ku saameeyeen guud ahaan Somaliland gaar ahaan gobolka Gabiley khaasatan soo guurtada oo runtii duruuf adag waqtigan ku sugan waxaan ku wareejin doonaa gudidan taakulaynta abaaraha heer gobol lacagta ay haweenku ugu talagaleen inuu ay kaga qayb galaan gurmadka abaaraha waxaan halkan ku guddoonsinayaa guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Gabiley lacag dhan $1,000 oo uu soo diray Abakar Aadan Maxamed Xuseen oo ah in yaroo dhalinyaro ah oo wali Canada ku dhashay oo waliga arag dhul Soomaaliyeed haddana dadaalkiisii kaga soo ururiyay asxaabtiisa wada shaqeynayeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaah lacagtina sidaas ku guddoonsi waxaan rabaa inuu mahad celino walaalaha sida la sheekay qayb qaatay gurmadka abaaraha ee reer Gabiley oo ku soo hagaajiyay maayarka iyo walaalka Cabdo Aayi aad u mahadsantiin walaalayaal xaaladdu hadda maalmo ka sii adkaanaysa afartii bilood ee tagay waxaanu la baxadegaynay dadkii soo guurtada ahaa ee bariga inooga yimid intaas ay kala isdul saaran yahay intii kale dhulka waa biyo la'aan baa ka jirta kulli waxyaabaha ugu baadmay markaanu siin doono muhiimadda waxa weeye meelaha imika biyo dhaanku ka jireen roob helin baanu biyaha aanu degdeg ugu dhaaman doonaa insha Allah waxyaalaha la soo gaarsiiseen halkan waxaan mahadnaq gaar ah uga jeedinayaa dadka soo diray lacagta imika la soo gaarsiiyay oo aniga lagu wareejiyay Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley.